runtii akhyaarta qabanqaabiyey madashan qiimaha leh juhdigoodana geliyey waqtigooda qaaliga ana siiyey afurkan wanaagsan ee macaan oo maasha allah imaankeenu tilmaamayna na siiyey marka ugu horeeya ayaan ku mahadnaqayaa sida wanaagsan oo habsamidu u dhan tahay dhinac walbana ka abyan madasha u qabanqaabiyey ama u organize gareeyey ayadaa markaan ka gudbo waxaa safar inagaga maqnaa injineer cumar iyo iimaankeenna imaan nigeeye labaduba alxamdulillah cala asalaama madashan qiimaha lana waxay caaway tahay in aynu ka hadalno magaalo weyn ah magaalooyinkeenna soomaaliyeed magaalada saddexaada oo taariikh leh iyo qofka inaga run ahaantii aynaan marnaba ka maarmin oo juhdi badan geliyey mujtamaceennan maanta halka ka jooga Arizona oo aaraadiisa iyo fikradiisa lagu liibaaday oo run ahaantii taabatay qolo cid walbaba taabatay oo qiimaha oo bulshadeena ka leeyahay aynu wada garanayno inaynu asagana ka hadalno dabadeetana u ducayno ilaahay idankiina waxa weeye kun iyo 952 waxaa jiri jiray administration la yiraahdo office amministrazione fiduciario Italo Soma waxaa la bilaabay baarlamaan maxalli ah baarlamaanka maxalli ah consiglio territoriale baa la oran jiray consiglio territoriale dadyowga matalaya waxaa laga soo diri jiray degmooyinka xamarna jaaliyadaha degan ayaa laga soo xuli jiray kan haddaan iska dhigo soo codkeyga magacsan soo ilaaga caafimaaya dadkii marka berigaas loo dirayey qof walba qofna waa diiday inuu tago marka waxaa la oran jiray faatixada hebel ha loo maro hebel faatixada ha loo maro oo ha loo diro halkaa consiglio territoriale waagii dambena waa tay noqotay laba walaalaa inay isku herdiyaanin inagu maantay run ahaantii kelmad aada u qiimo badan baa sheekh axmed hadaayi igu yidhi wuxuu igu yidhi injineer cumar waa nin aada u qiimo badan innagana inagu qiimo badan haddaan reer Arizona reer Phoenix nahay run ahaantiina kama maarno waqtiga xaadirka markii ay u aadayo boosaaso aynu dirayno waxa weeye qof asagu misaal ahaan hibaynaya waqtigiisa iyo aqoontiisa sidii la farayno waxaa la yidhi waxaa markii su-aalahayna la weydiinayo yoonka la xisaabtamayo waxaa ka mid a aqoontaadii iyo kartidaadii iyo waxaad tiqiin ummadda maxaad u tartay laakiin buu yidhi laakiin wuxuu yidhi cumar waa nin aada u qiimo badane reer boosaaso maxaanan doonaa nin cumar waxa weeye faatixada waagaa la isku diri jiray oo boosaaso for example xaaji bashiir ismaaciil iyo ugaas yaasiin cabdiraxmaan labadaasi ay labadii nin oo faatixada lagu diray waxa weeye marka consiglio territoriale laga hadlay haatan inagu taasaynu taaganahay xaqiiqadii waxa weeye boosaaso markaan ka hadlo waa magaalo taariikhiya waxaa ku nool in maanta ka badan 1 milyan bandar qaasim bay ku magac dheereed anagu bandar qaasim markii ku magac horta boosaasodu waa waaga dambe laakiin waxaa jirtay waqti hore oo taariikhda Giriiga ahayd
oo boosaaso ay ahayd meesha businesska laga wada xiriiriyo meelo badan oo masaaridoy giriigoy meelo badan oo taariikhda dawlad garanaysan giriiga runaanti waxa weeye taariikhda civilizationka meelaha laga magacisay maanta se boosaaso waxay caan ku tahay qadiyada tan maanta jirta oo ay u gurmatay dadkii maantay ku soo dhibaatoobay Yemen oo si aan la malayn karin ay ayadoo aan la kala qaybin ama Yemen ahaado ama Soomaali ahaado ama Amhara Ethiopia ahaado ama any qof kasto marka halka yimaada taasna runtii waa magaciisi Greega waqtigoodii waxaa loo yiqiin Mosilontu waxay ahayd meel xarun tijaari ah oo loo soo doonin jiray waxyaabaha udgoon ama muxuu ahay meesha laga magaciisay boosaaso maamul ahaan waqtiga maamul baa ka jiray bari marka maamul baa ka jiray maamulka boqortooyada ka jirtay boqortooyada xarunteeduna dharoor bay ahayd ilaa waqtigii dambe afis soo galay oo maamulkii afis yimid halka markaan taa boosaaso uga gudbo xaqiiqadii waa la wada garanayaa injineer Cumar kartidiisa aqoontiisa dadnimadiisa afkaartiisa wada wanaagsan oo runtii laga wada faa'iiday marka xaqiiqadii markuu boosaaso tagana taas buu la tagayaa horena wax buu uga qabtay haatanna tiibuu la aadayaa halkaa 1990kii dagaalkii ahliga ahaa markuu ka dhashay dalkeena ka dilaacay Cumar wuxuu ka mid ahaa aqoon-yahanadii u gurmatay dhismaha waqooyi bari maamulka waqooyi bari run ahaantiina dabadeetana maamulka waqooyi bari oo u gudbay kan Puntland maanta aynu joogno oo run ahaantii lagu wada liibaanay degmada magaalooyinka boosaaso 29 qaybood bay ka mid tahay bay ka dhisan tahay 29 qaybood waxa laga soo doortaa golo degaan oo midda dhexe matalaya laakiin 19 qaybood midna waxay leedahay maamul hoose iyo howl wadeenay leedahay midda marka guddiga golaha deegaanku markii 29 ay soo yimaadaan ayay waxay dooranayaan in meeyarkaas ayaa guud ahaan markaa mas'uul ka noqonaya waxaan ilaahay idinkii rajaynaynaa July meeyarka ku soo baxaya consider muxuu ahaa golaha deegaankaas inuu noqdo injineer Cumar Sadiq baan ilaahay idinkii ilaahay ka baryeynaa rajaynaynaa insha Allah markii aan runtii sii qodobeeyay waxa weeye waa nin deegaanka yaqaan waa nin deegaanka hore wax uga qabtay waa nin kartideeda iyo aqoonteeda leh mabaadi'dii horey u jiri jirtay waa jiray 65tii waxaa soo baxay slogan oo Cabdirasaaq Allah naxariista Cabdirasaaq Xaaji Xuseen baa prime minister ah waxaa soo baxay slogan la yiraahdo l'uomo giusto al posto giusto Bustarossa wax la yiraahdo baa waxa way dadka uu ka horreeyay Allah naxariista Cabdirasaaq Bustarossa wax la yiraahdo Bustarossadii marka hadii aad la aado qof kale waxa la oranayaa reer hebel buu ku riixayay oo reer hebel weey Bustarossadii u horreysay ee shaqada laga joojinay walaalkii buu u dhibay walaalkii baa loo dhibay jawaal Allah yarxam dabadeed l'uomo giusto al posto giusto baa soo baxday slogankaasi waa caan baxay qof walba jagan walbaba qofka ku haboon inuu qabto weeye waxaan qirayaa oo aan aaminsanahay anigoo aqoon u leh deegaanka anoo aqoon u leh injineer Cumar anoo aqoon u leh baahida dalka run ahaantii waxyaabaha loo baahan yahay in injineer Cumar uu yahay l'uomo giusto al posto giusto ay u tahay inuu maanta noqdo meeyarka Boosaaso bishii May 2011 waxaan muxaadarooyin badan oo laga qayb galay dalka
oo lagaga hadlayay badbaadada dalka ayaa ka qayb galay waxaan filayaa inaad ka arki doontaan YouTube Professor Maxamed Cali Abuukar iyo badbaadada qaranka May 2011 waxaan halkaas aan fiirsataani ka cadeeyay in dhibaatada in haysata maanta ay tahay lack of leadership oo dad yoga hayay xilka iyo dad yoga tartamaya iyo dad yoga hunguriyeynaya intaba inayan ahal u ahayn runtii xilka inayna oo jirin qof walba wuxuu leeyahay jagada sandooniya ma qaban karaayo maxaan ku qaban karaa shay wuxuu fuli karaa midnaba arinta ma jiro laakiin maantay iga duuba midda iga duuba xaqiiqadii waxa weeye injineer Cumar waxaan aaminsanahay inuu yahay leaderka iyo managerka hogaamiyaha iyo maareeyaha iyo maamulaha ku habboon xilkaas duqa magaalada Boosaaso markaan Cumar taariikhdiisa ka hadlo marka qaarkood wuxuu yiraahdaa sanooyinkaasi horeyaan lagu sheegino da'daydii baa igu soo baxaysa marka waxaan ka soo qabanaynaa iskuulka jaamacadda markuu ka baxay inuu ka soo qabanaynaa 79kii wuxuu ka qalin jebiyey jaamacadda Gahayr chemical engineering ayuu halkaas ku soo magaciisay waaga waxa jiray xaqiiqadii kacaanku wuxuu qabtay wixii la doono hal sheego laakiin wax maantay miisaami kara ama magaciisayn kara ma jiraan horumar weyn oo badan oo la qiyaasi karin baa la qabtay oo dhiri xiradiin idinku dad wada magaciisa la tiirin ka soo deeyo qaarkiis marka xisaabtu noqonayso Sheekh Ahmed baa la soo nimaadna waxa Sheekh Ahmed 73 national service baa yar baa hayde ma xisaabtu laakiin xisaabtu waa ku imaanaysa xisaabtu maxay ku imaanaysaa anagu iskuulka yagi waxaan ku baranay Talyaani elementary ila high school Talyaani baan ku qaadanay jaamacadii markaanu tagnay anigu waxaan ahaa dadkii u horeeyay 60meeyadii scholarship-ka Talyaaniga u helay Talyaaniga galaaskii markaan wada galay baan number 1 ku soo baxay saasi ii fiiray waxay wadinkan madow see uu noqon karaa number 1 oo Talyaaniga uga noqon kara waxaan ku leeyahay miyad ilaa sidii Soomaaliya inay mustacmar Talyaaniga inay ahayd oo wixii aad idinku curriculum-ka iyo syllabus-ka saa u qaadatay anagu aan u qaadanay Soomaali xageeba ahayd bay kulay hadda ardayda jaamacadda la dhigay Soomaali midda Kuuba ka hooseysa miya marka qaab ahaanteeda Talyaanigaas ayaa dokumentiga xafiiska iskuulada wax walba lagu qaadan jiray correspondence-ka xafiiska Talyaani bay kacaanku waxa uu sameeyay guulaha sameeyay waxa weeye Soomaaligi oo la qoray ololihii waxbarashada oo meel walba gaaray markii dambe waxa dhacday waagi hore wiilasha ay islaamuhu u yeeran jireen iyo odayaashii iyo waxa warheed walaal ay qoro hebel igu qor waraaq maalintan de ku iyo ka abaatibi qofka sa qoranay wixiisi waa ku qofkii ku socoto iyo ka iyo qofkii ka socoto marka run ahaantii guulaha wax badan weeyaan runtii xisaabi karin hase yeeshee xaqiiqadii dalkeenu wuxuu u baahan yahay isbedel positive isbedel xagga wanaaga uu baahan yahay isbedel xagga u wanaaga ana waxa dhalin kara dadka ehelka u aabaa dhalin kara qof kasta ma dhalin karo qof aan waayarag ahayn oo weligii aan dawlad arag oo weligii aan maamul arag baa kursi ku fariisanay kullina waa wada professor iyo wada doctor markaad u raacdo qaab ahaantiisaasi ku noqotay inkastoo dalkeenna waxbarashadiisu ay wanaagsan tahay oo haatan waxbarasho wanaagsan iyo iskuulo fiican ay dalkii ka abuurmeen haddana waxa weeye waxaa loo baahan yahay yaa maali jiray bay u baahan tahay maamulku cayaar maaha
inagu caado waxaynu leenahay dukaan tabakaaya qofkii sameeyay dhinaca kale teedu mid kale ku samaysanayna tabakaayadii ma maamuli naqaanaa ma galayno ma oranayno waa wax dabeecad inoo ah inagu ummad ahaan waxaynu nahay horumarka walaalkeen kuma faraxno oo maasha Allah ma oranayno waxaan oranayno oo hebel sidee waxa ku helayno oranayno hada nabiga alayhi salatu wasalaam iimaankeeni baa fadhiyo nabiga alayhi salatu wasalaam iyo sheekh Ahmed iyo ragii runtii oo magaciisa eelka oo alayhi salatu wasalaam wuxuu xasadku wuxuu xasanaadka u cunaa sida xatabku ooda xatabku dabku u cuno marka xasanaadkaaga oo dhan waa ka ilaa aad gaarto inaad walaalka la jeclaato waxa naftaada la jeceshahay adigu marka Umar khayr baan kula jecel lahay ilaahay idankiis horumar iyo loo baahan yahay iyo isbedelka loo baahan yahay ayaad sabab u noqon doontaa deegaanka insha Allah taala markaan dib ugu noqdo markii tii taariikhda kacaanka hayay waxa weeye dad ardadu markii iskuulada ka soo baxdo hay'adaha lagu qoraa hay'adaha lagu qori jiray ma lahayn shaqaha ma jirin qofku markuu ka soo baxo waxa lagu qorayaa hay'ad Umar markii uu ka soo baxay jaamacadii chemical engineer soo qaatay mareeri baa lagu qoray sokorti mareeri markaas cali khaliif galeyd baa ka ahaa maanaye ka ahaa waa waqtiyadaas waa waqtiyada yadii weeye markii taariikhdu noqoto run ahaantii howlo adag oo howlo wanaagsan buu ka soo qabtay halkaas ilaa muxuu ahaa 81kii asagoo gaari noqday production chief manager muxuu ahaa waqtiyada shiftiyada shaqada production kun waa waxa ugu muhiimsan sokor magaciisa anigu sokorta jawhar baan joogi jiray markii horeeto marka waa wax aad iyo aad u qiimo leh weeye position aad qiimo u leh weeye marka dabadeeto dadkii haajiray wuu ahaa Libiya aaday Libiya shaqooyin badan buu ka soo qabtay waxbarashada talyaanigiisana wuu u magaciisay shirkadii talyaaniga ahaa meesha Libiya joogay ayaa markiiba qaatay shirkad Belali la yiraahdo talyaani ah ayuu quality control u ahaa hubiyaha muxuu ahaa quality-da nooca hawsha markaa la fulinayo cayaar ma aha qofka quality controlka laga dhigayo then taasi 83 ilaa 84 bay ahayd 84 ilaa 85 wuxuu Ital company oo Ital Cap ah hadii la soo gaabiyo oo prefabricate-ka guriyaha prefabricate-ka sameeyay ayuu runtii ka soo shaqeeyay 1995 ayuu dalka ku soo noqday qabano xagga ka timi xagga soo timi waxaan arki waayay ma oran karin oo ma leeyahay saaciidada ka horeeya waa tahay halka markuu tegay dalkii Boosaaso ayuu wuxuu ka sameeyay shirkad xoolaha dhaqda xoolaha dhoofisa shirkadaasi Sheekh Usmaan waaye Sheekh Usmaan ayay la magac baxday calaamadeedu iyo loogadeedu shabeel bay ahayd ilo waa xaqi abtirsiga aadaysa aniga baabuurkayga Sheekh Bacali baa igu taala Sheekh Bacali baa igu yaala hadda waxaan malaynayaa dadyoga oo warda magac kale muxuu ahaa magac muwaayadaga la baxday bay yiraahdeen wala adani ma arifak ma yatamanag baa yiraahdeen adduun baan intaan maray lugeynay mi baan adduunyo dhan waxa ku cunayay Sheekh Bacali magaciisa ku cunayay ilaa aan muxuu ahaa meelo badan magaciisa ilaahay ha u naxariisto janna firdaws Allah ka waraaniyo marka qaab ahaan magaca waa very important calaamada marka waxay ahayd calaamad abtirsiga ku salaysan oo hawshaas qaabishan 1991 الخير بي يسبب الشيء لو في حولها لكن سجاشن يكودي إلى سجاشن يصدق دي وحو كشقيني ووحو أها أقوى يهندا إهلك النقضي
inay ku fekeraan oo ka fekeraanin oo maamulaan oo shaxda u abeeyaan oo u qorshe u degaaniin sidii maamul wanaagsan ay meesha uga dhalan lahayd waqooyi bari markii la yiraahdo. waxaan xasuustaa gobernatooraha ay markaa xusheen, yani mar walba isku ra'yi baan ahayn, allaha u naxariistee ibraahim generaal wuxuu ahaan jiray sarkaal NSS ah. 82 baa mar soo baxda la yidhi laba sarkaal NSS ah in gobollo loo kala dhiibo taladaa anigu aan geystay waxay ahayd labadaas in laga dhigo midna ibraahim generaal midna shaati guduud. allah wada naxariistay, ilaahay wada naxariis, labadu waa dhinteen. ibraahim generaal marka dhuusamareeb baa looga dhigay, shaati guduudna garbahaare gedaal looga dhigay. laba qof runtii saas tilmaamta saas ahaan ku magacay. marka ibraahim aan u soo noqdo, waa qofkii u horeeyay ay xusheen inuu noqdo, waana ku habboonaa xaqiiqadii. waa slogankan sheegayay weel wama justo albosto justo bay ku timi taladaasi. waa tala ay doonayaan inay wax ku hagaajiyaan oo wax ku saxaaniin. 93 muxuu ahaa injineer cumar wuxuu ka mid ahaa aqoon-yahanadii markaa maamulka saldhig u ahaa, asaas u ahaa, oo waqooyi bari ku wareejisay SSDF. sagaashan iyo shantii baa anigu muxuu ahaa sheekh yuusuf baa aniga isaga iga sheekeeyey, shiikha iga sheekeeyey. dubay baanu isugu nimay aniga iyo allah naxariiste boqor cabdullaahi kon iyo boqor maxamed beeldaaji cabdullaahi iyo muxuu ahaa rag badan iyadoo la yahay baanu mar anigu dubay baan deganaa, gurigii ka wada qadaynay morgan iyo buu nooga sheekeeyey qadiyadda. maxamed yaasiin buu qorshaha nooga sheekeeyey. run ahaantii waxa weeye waa laysu wada yimi ra'yigaas islaax doonka ah, wanaag doonka ah ayay ahayd. waxaa la yidhi maamulka si aynu xalaal ugu magacisayno iyaynu u habaynaa qof ummadoo dhan ay raalli ka wada tahay aynu raadino. sheekh yuusuf wuxuu yidhi masaajidkaa la igu yimi, markaasay li kaale noo noqo, kaale gobernatoore noo noqo. dabadeetana laba ku-xigeen baa loo sameeyey. nina wuxuu ahaa maxamed xasan barre, nina allah u naxariistee nakruuma buu ahaa, ilaahay ha u naxariistee. effectively maamulkaasi wuxuu ahaa maamul run ahaantii ra'yiga weyn uu ku lahaa injineer cumar qaabkaas. 95 wuxuu ahaa asaasaha rugta ganacsiga. runtii shaqooyin aad u adag buu cumar soo qabtay. xaqiiqadii waana lagama maarmaan in waayo aragnimadiisa iyo kartidiisa iyo laga faa'iidaysto faa'iidayna